waxaan ahay gabar aad u murugaysan baan ahay. Murugadayda ugu weyn maanta waxa weeyaan gabadhaas yartoo iga xanuunsan. Muddo 6 sano ayaa gabadhaas waqti ku hayaa. Cid garab igu siiso waan waaye oo alla ka ahayn. Marka gabadhayda arrinteedu wax ka qabad weyn ayay leedahay. Haday dhaqaatiirta ay qaas ii sheegaan. Marka maadaama ay wax ka qabad leedahay anigana aan waxba u awoodin. Maanta waxaan iga codsanayaa oo mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iga codsanayaa kaninkayga ninkii furo oo arko inuusan i dhaafin oo si naxariis leh oo igu daqado. Gabar walaashaan ahay ilmo ka xanuunsan yihiin murugaysan qurbo qaxooti joogto ayaan ahay. Kulli dadka muxsiniinta ah oo walaalahayga oo qeyrka jecel ayaan ka codsanaa inay isoo garab istaagaan si naxariis leh isoo garab istaagaan. Marka gabadhaas iga xanuunsan waana ay aragtaan dabtayday saaran tahay cid iga bedelayso malaha cid iga qabanayso malaha oo ma shaqaysan kari oo ma xamaalo kari isbitaalkaba si dheer ma geysan kari intaas maanta insha Allah arintaydaas adika Ilaahay intii ka sokaysa adika maanta kalimkaas idin sheegtay inay soo garab istaagi doontaan oo ay soo caawin doontiin Ilaahay weyna subhanahu wa ta'ala ka rajaynaya cid kasto oo gabadhaas masaakiinta ah u kaalmayso Ilaahay weyna subhanahu wa ta'ala Ilaahay ha u kaalmeeyo cidii wax ku soo tarto meeshii wax ka soo bixisay wax ka badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u geliyo walaalayaalow adika idin fadhiya garab qabto waan idin baryaa please gabadhaas isbitaal ha laga geeyo rajay leedahay gabadhaas laga samarsiyo lambarkayga 07 15 48 10 52 Habiba Raago.